guulaha laga gaadho nolosha adduunyo badiba waxa sababa ku samirka dhibaatooyinka iyo caqabadaha soo wajaha qofka bini'aadanka waana hubka ugu fudud ee lagaga tallaabo qodxaha toodsan toobiyaha loo maro horusocodka iyo wanaaga isbeddelka xilliyaduna waa mid ku xidhan qoraalka leh oo aanay cidina malaysan karin nolosha dhexdeeda waxaanu maanta booqanay qoys ku nool duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa kuwaasoo wehela ahaa dhibaatooyin wax la'aan iyo xanuuno ay ka mid ahaayeen ayna ku adkeyd maaraynta noloshooda maalinlaahi una dheerayd hooy la'aan sababtay inay buur dhakadeed ku noolaadaan ha yeeshee iyagu samirka le kaashaday waxaanay mar qura oo ay warbaahinta ka soo muuqdeen isbeddel ku yimi noloshoodii waxa alla ka fayday dhibaatooyinkii haystay waxaanu u iftiimiyey il ay mahadsheen oo si maalinla ay ugala soo baxeen quutal daruurigooda maalinlimo oo markii hore ku adkaa kaasoo eebba furo uga dhigay muxsiniin Soomaaliyeed oo ay taabatay noloshii ay ku noolaayeen walaalo waan fiicnaa alxamdulillah mahad baa lagu jiraa ilaahay mahad iska leh waxaan sheegay dadka muslimiinta ilaahay mahad iska leh dadka muslimiintana waan mahad celinayaa waxaan sheegay noloda baan ku jiray waxaan sheegay noloshaadkeed imka waan ka baxay imka waxaan sheegay meherada dhanaca camira baan haystaa alxamdulillah kasoo masarifteeda kala soo baxnaa ilaahay mahad iska leh marka labaadna waxaan mahad celinayaa waxaan sheegay hay'adan Horweyn Foundation ayaan mahad celinayaa imka waxaan sheegay nolol adag baan ku jirnaa aad u adag ilaahay mahad iska leh imka waan ka baxnay meherada dhanaca camira baan haystaa waxaan sheegay alxamdulillah kasoo masarifteeda carruurteeda aan kala soo baxnaa waxaan sheegay dadka waxaan sheegay anigoo kala ahaan waxaan u sheegay inay samraya sidkii hela waxaan sheegay inay iska samraan waxaan sheegay ilaahay baa mahad iska leh iyaguna biri ka maalin baysan oo kale way soo martay qof walba waxaan sheegay inay iska samraan oo waxaan sheegay nolosha cidhiidh isku gelin alxamdulillah inay iska samraan baddooriya waxaan sheegay Amaal Maxamed waan u mahad celinayaa dadka kale muslimiintana waan u mahad celinayaa marka hore jaga aan leeyahay maan oolin jaga amaana baan aalay waxaan sheegay nolol adag baan ku jiray noloshii adkayd alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh imka waan ka baxay jagadiina imka waa tan waxaan sheegay jaga waa la iibiyay nimcaan ku jirnaa dadka kale Amaal Maxamed waan u mahad celinayaa dadka kale muslimiinta ahayna soo caawiibay maamo Aamina Maxamed Cali Nuur waa mid ka mid ah hooyooyinka sida weyn uga qayb qaatay isbeddelka ku yimi nolosha qoyskan reerkan markii hore noloshoodu wallahi way adkayd nolol adag bay ku jireen oo waxba maanay haysanin markii walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed ee muxsiniinta loo bandhigay si degdeg ah ayay uga soo jawaabeen mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad maanta noloshoodu waa ma sha Allah dadkaasi ka mid yihiin waka dukaankoodu u kala socdaa waa laga adeegtaa waa loo yimaadaa wax walba loo dhigay dukaankii marka ma sha Allah noloshoodu maanta aad iyo aad u wanaagsan tahay khayr Allah siiyo dadkii soo caawiyay ee muxsiniinta ahaa ee Soomaaliyeed ee wanaaga jeclaa khayr Allah siiyo gurina waa loo iibiyay jaga loo iibiyay laakiin ma dhisna jagadaana insha Allah mar un baa loo dhisi doonaa hadduu Allah idmo laakiin noloshoodu maanta waa 100% aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin jisaka Allah khayr baan leeyahay meeshaad ka soo bixiseen ilaahay wax khayr qaba ha idinku bedela dhamaantiin dadkuna inta kaliya ta kuma koobnee dad badan baa jira oo dhibaataysan oo aan wali la soo banaanka la keenin insha Allah iyagana ha iska sugeeno waqtigu uu soo mari doonaa samir baa loo baahan yahay samir bacda guul bay gaari doonaan insha Allah ta'ala walow aan dukaanka loo hirgeliyay qoyskan ay ahayn mid buuran haddana waa mid bedelay jawigii ay hore ugu jireen waxaana ku taxan dadka xaafadda anagu qorob buurta degan ayaan nahay aad ayaan ugu faraxsanahay dukaankan noo soo dhawaaday dukaankan aad ayaan ugu faraxsanahay gabadhan ayaan la jaarnahay adeegu naga fogaa meel kasta oo waxaan ku dhaadhac fog baan uga had la si ku fijirnay marka guriga naga hortaagan ayaan soo qaadanay alxamdulillah ilaahay noo soo kordhiyo noo soo kordhow noo soo dhawaaday isbeddelada nolosha iyo duruufaha adag ee la soo darsay qoysaska qaarkood ayaa ah wax iska caadiya oo la soo darshay addoomaha qaarkood kuwaasoo alle samirkooda ku eegayo qoyskanina waxa uu tusaale nool u yahay boqolaal qoys oo Soomaaliya kuwaasoo ku jira duruufo adag ha yeeshee ay tahay inay kaga baxaan samirkan oo kale waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andar MMTV magaalada Hargeysa